waxaan halkan kaga hadlayaa qodobo dhowr oo ay ka mid yihiin duminta la dumiyay gobolay iyo dhulkii colaadu ka tagnaa gobolka aad iyo aad baan ugu bogaadeen maxkamadda uguna maxay taageersan lahay in talaabada ay xukuumaddu qaaday ay tahay talaabo kii horseedi kartay meesha amni waara ka dhaco waanu soo dhaweynaynaa waxa weeye dadka meesha isku laayay aagii la isku laayay oo dhan la burburiyo maca masaajidadeeda la mariyo caga waxa weeye ammaanka wuxuu dhigay meesha haddana lagu kala ammaan helin weyn wixii yaalaba laga burburiyaa wixii ka dhisnaaba si xukuumaddu la qaadanaa arrinta way fulisay qodobka labaad ka hadlay waxa weeye isbahaysigan iyo xisbiga wadaniga ku biiray waxaan u arkaa xilsi alxaaji xasan wuxuu ahaa wasiirkii ugu awoodda badnaa dowladda Soomaaliya wuxuu ahaa nin xilal badan soo qabtay waxa gudub bixin commission ku ahaa nin maanta siyaasi weyn oo cirraba ka sii fi weyn weyn maanta waxay ahayd inay qolada wadanisiiyaan gudoomiyaha xisbiga wadani hadday taasi dhici weydana waxa la wax isbedelo ay ku keenaysaa maxay tahay siyaasadii hore ay ka taagnay beesha beelaha bariga iyo galbeedka Sanaag ay ka taagnaa xisbiga wadani halkii uu ka taagay waxay soo kordhinaysaa kubiritaanka xisbi mar haddana gudoomiyaha xisbiga ahayn oo gudoomiyaha xisbiga la dhaafiyo dil la siiyay hawdki waxa la wax soo kordhinaysaa iyo waxa la wax saameyn ku yeelanaysa iyo waxa la wax cod uu ka geeyay cirro muxuu ahaa deegaanada muxuu ahaa galbeedka Sanaag iyo bariga Burco ma jirto qodobka kale ka hadlana waxa weeye muxuu ahaa waxa jira gobolkan Togdheer waxa weeye waa gobol gobol midaysan weeye waxa jirta meesha la yiraahdo Gaalkacyo iyo Burco waxay iska shabahaan waa laba dawlad marka maxay sii baraaxiligi hore wuxuu la kulmay daanta muxuu ahaa mijirteeniyada ayuu wuxuu la kulmay la shiray qoladii mijirteeniyada wuxuu ku yiri hawiyada dhinaca uga soo wadeejsan maalinta dambe haddana maalinta waxa ku jira mid majeertay oo ku jiray 8 qof oo la kulmay maalinta dambe haddana wuxuu la shiray qoladii reer maxay tahay hawiyaha oo mid majeertay ku jira soo garanay dadna wuxuu yiri qolada majeertay meel uga soo wadeejsan marka waxaan leeyahay barasabka gobolka Togdheer waxaan ugu baaqayaa meeshan waxa weeye waa sida midowga kala burco hadii xagga gobolka joogto xagga dadku isku dhex jiraan marka waa inaad si siman oo isku mid ah aad ula wada shaqeysaa haddaad ula wada shaqeyso imisa barasabka ka horiyo halkan meel la meel looga yimid halka xirarka laga qaado ku fashilmay maamulista iyo waxaan leeyahay dadka si isku duubiya waa inaad wada oo aan dadka kala qaybin waa dadka la shaqeysa qodobka kale waxa weeye xukuumaddu u soo jeediyay inay talaabo gacan bira iyo talaabo adag ay ka qaadato qodobadii hore aan ka hadlaynay ahaa si aan dagaaladaas iyo xasuus oo noqon waa in meelihii lagu dagaalamay aan cidna loogu hamran nimankii TV-ga soo tumnaaynaha maxay tahay muxuu ahay meelaha taamnaay waxaan u sheegaynaa waxa weeye kuwa meesha ku dhintay waa naga haddana loo meesha ku dhimanaa waxa uu hoggaansanay xukuumaddu talaabada ay qaadaba loo hoggaansanay wixii xukuumadda ka hor yimaada weyn meel looga soo wareejistaa iyaga laftigooda kuwii TV-da soo tuway waa xukuumaddu talaabo ka qaadaa oo aan ka hamran oo ay maxay tahay awoodeeda iyo baawarkeeda mandate-keeda xukuumadda iyo dawladnimo ay muujisaa xagga kale ina bixiyo waxaan u sheegaynaa gudoomiyaha xisbiga mujaahid baa tahay dalkana in mujaahid xukuumadda noqon ogolahay laakiin anaku muxuu ahay amaah lama dhaqaano siyaasaddu amaah male haddana haddii aad gudoomiyaha weyn sida ugu raqsiyaha badan aad u wareejisaa maxamed caashi cabdiweli aad ku wareejisaa ayaanu kugu baaqaynaa haddaad codka bariga Burco iyo galbeedka Sanaag doonayso wax la wax loo ku amaahinayna cid ma jirto waxa weeye imikada sida cirraba ugu wareejiyay hawdku weynaad aduguna talaabo dhiiran oo maxay tahay macquul aad u qaadato saasana loo kulaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi